waxaan maanta shirka talaada caawa aan u qabanaynaa dhacdadii maanta dhacday sida ay bulshadu la socoto ama maanta laga warhayay dhacda ka dhacday jeelka weyn ee magaalada Hargeysa halkaasoo markii ay dhacdadu dhacday ay qaar kamida warbaahintu tageen saxafiyiinta Soomaaliland ee ka hawlgala xarumaha warbaahineed kala duwan iyo kuwa ka hawlgala barahooda bulshadaba halkaas oo markii hawshaasi ay dhacday runtii ciidankii halkaa joogay ay xidhxidheen saxafiyiin tiradoodu ay gaadhaysay ilaa imika intaanu ogaanay ilaa 15 saxafi oo meelo kala duwan ku xidhan oo ay ku jireen laba hablood arrintaasoo markii hawshaasi dhacdada laga soo dareeray aanu kala macaamilaan aanu la hadalnay mas'uuliyiinta amniga gaar ahaan taliyaha ciidamada booliska oo aanu arrintaasi aanu kala xaalay runtiina oo aad iyo aad uga mahad celinayno in markiiba hablihii gaar ahaana Sagal Mustafa oo VOA ka hawlgasha markiiba oo ku jirtay saldhigga dhexe iyo Naciimaba la sii daayay oo iyaga aan shuruudna lagu xiro waxba lagu xiro markii uu taliyo naga aqbalay wili labada hablood oo sii deeyna intii kale ee soo hadhay oo saldhigyo kala duwan ku xiran waxa anaga noo suurta gashay ka soo jaahan inaanu iyadoo xilli dambe ay ahayd aan tagno saldhigga dhexe oo halkii ugu weynaa ayaan islahayn saxafiyiintu way ku xiran yihiin laakiin aan ugu tagnay Sagal Mustafa iyo 5 saxafi oo kale oo ku xiran oo halkaasi joogay Sagal markii la sii daayay 5 saxafi oo kale ku xiran waxa kale oo aanu booqanay xarunta Honkeyga TV oo runtii markii hawshaasi dhacday ka bacdi ayadana ciidan galeen oo halkaasi qalab yaalay oo 2 kameradood iyo ay soo qaateen saxafiyiin iyo hawlwadana halka markaa ku shaqeynayna la soo xidhay iyagana tiradoodu ay dhan tahay 6 saxafi iyo saxafi kale oo Honkeyga ka tirsan isagana banaanka laga xidhay guud ahaan xarunta warbaahineed 7 saxafi baa ka xiran iyo 4 kale ee kula jira saldhigga dhexe iyo iyaguna ilaa 3 saxafi oo imika aanan ogaanin ilaa xilligan ay mahadlayno meel ay ku xidhan yihiin laakiin aanu ka warqabno inay xidhan yihiin oo ay ka mid yihiin Axmed iyo ay ka mid yihiin Xasan Galayriyo marka dhacdada runtii maanta dhacday aad baan uga xunahay ka soo jaahan aad baan uga xunahay saxaafadu duulaan kuma aha wadankeeda saxaafadu dhibaato kuma hayso dalkeeda way u adeegtaa maalin iyo habeen waxay u soo jeedaan oo noognaho dhacdadii u dambeysay ee ka dhacday suuqa Waaheen ay haayeen dadkii naftooda u horay ee soo tibinayay sidaasanay marnaba aanay duulaan iyo dhibaato aanay ugu ahayn inay wax wanaagsan ay ka tabiyaan mooyaane laakiin arrintaasi oo si kadisa hawshii halka ka dhacday oo xilli iska kadisa iyo xilli kulayla oo ciidamadii laftoodu ay markaas u yimaadeen ay hawshaasi dhacday anagu wixii dhinaca ayaga saxaafadahan aad iyo aad baanu uga xunahay wixii nagu dhacayna aad baan uga xunahay saxaafada Soomaaliland dastuurkeena ayaa dhigayeenaysa inay xor tahay oo ay dhacdooyinka tibin karto hadana dhacdooyinkii waxa loo eegaya anshaxii saxaafnimo iyo wixii moralka iyo akhlaaqiyadka u wanaagsanaa ay tibinayeen oo ahayd in la hubiyo dhacdo kasta oo dhacda marka ay dhacdo in warka la hubiyo marka anagu waan ku taaganahay waan jecelnahay inaanu dhacdooyinka noocaasiya aanu soo shaandayno bulshada la wadaagno wax hufan oo tafatran arrintan imika caawahan habeenimo nooga dhacday oo markii sidii hawshan ugu jirnay xilli dambe noqotayna waanu ka ballanay taliyaha iyo mas'uuliyiinta kale ee amnigaba in bari aanu ka sii anba qaadno halka oo laga wada hadlo sidii saxafiyiinta tiradooda iyo loo sugi lahaa iyo xarumahaba sidii aan uga hawlgali lahayn hawshaas sidii aan isaga dhameyn lahayn sidaas aanan anagu saxaafad ahaan aanan marnaba diyaar ugu ahayn inaan wax wanaagsan tarno mooyaane inaan wax xun tarno wadankayga oo aan u adeegno waynu ognahay xaaladaha ay ku shaqeeyaan saxafiyiintu iyo xarumaha warbaahintuba laakiin isseega maadaama shaqo lagu jiro oo warbaahintu shaqo culus oo culeyskeeda leh oo xaqiijin iyo dabagal iyo war ururin oo war ay raadinayso waa laga yaabaa inay dadka qaar dhibsadaan ama qaabka u teginayaan ay dhibsadaan ama xaqiiqanimadeeda ay dhibsadaan marka anaguna waanu wixii dhinac ayaga ah in mar walba aanu saxno oo hagaajino diyaar baan u nahay anaga wixii la naga galo khalad ahna runtii in naga xaal mariyo ayaa diyaar uga fadhinaa marka hawsha maanta sidaas oo dhacday insha Allah bari ayaanu jecelnahay in aynu hawsha ka sii anba qaadno inta aynu ognahay saxafiyiinta qaar baa ayaa daawac qaba oo nabar ku dhaceen oo qaarkood imika aan dawooyin u geynay oo aan ka soo baxnay marka wixii dhibaato dhinaca ayaga dhacdana bari markaanu qiimeeyno haday tahay xarun warbaahineed haday tahay saxaafadaba waxaanu kala xaalaynaa hay'adaha amniga iyo mas'uuliyiinta amniga ee wadanka arrintaas oo qaabilsan
berri baana kolley dhacdada rasmiga ah iyo tirada guudba aynu xaqiijin doonaa intaasaynu maanta isugu keenay aad iyo aad baad mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.